السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فرحدي عافيماد قبا أن idin rajaynaya fadlan muuqaalka meel fog gaarsiiya maadaama uu yahay muuqaal bulshadeena waxtar iyo manaafacaad u leh. haweenka la dhiban xanuunka la yiraahdo hyperthyroidism ee bulshadeena ay u naqaano haweeneyda thyroid bay qabtaa ama thyroid bay leedahay. thyroidku waa qanjir ka mid ah qanjirada jirka ee xanuun maaha laakiin xanuunka ku dhaca ayaa mid hayba iyo mid hyperthyroidism marna wuu sareeyaa marna wuu hooseeyaa. haddaba haweenka la nool xanuunka hyperthyroidism ee markaas ka sare qaba ama qanjirka loo yaqaano thyroidku shaqo badan qabanayo kaasaynu insha Allah muuqaalkan kaga hadlaynaa. marka koobaad haweenka qaba waxay leeyihiin wax loo yaqaano symptoms, signs and symptoms, calaamado iyo astaamo lagu yaqaano. calaamadahaas iyo astaamaha lagu yaqaano waxaa ka mid ah haweeneydu inay nervous noqoto, nervous, irritability inay ahaato, haweeney wax kasta ka cadhoonaysa. haweenka qaba waxaa lagu yaqaanaa inay persistent thyroid ay sameeyaan, daal joogta oo aan kala go' lahayn, luqunta ayaa barara, isla markaana waxay ka dareentaa in qanjirka qaybta luquntu qaybta hungurigu soo bararayo. haweenkani xaalad inta badan mood fluctuation ah oo aan deganayn ayay ku jiraan. waxa inta badan ku adkaata hurdada. waxa lagu arkaa inkastoo ay usually ay tahay ama aanay mid common ay tahay oo aanay caan ahayn in xilliyada qaar wadnuhu uu si degdeg u garaaco. xanuunkani waxa uu runtii khalkhaliyaa labadiisa qayboodba in haweeneyda dareenkeeda uu saameyn weyn ku yeesho maadaama oo markaa qanjir uu shaqadiisii uu khalkhal ku yimi. haddaba xanuunkan maxaa sababa? waxa ugu weyn xanuunka sababa waxa loo yaqaanaa autoimmune system. autoimmune difaacaaga jirka ee immune systemkaaga ayaa waxa uu weerarayaa qanjirka la yiraahdo thyroid gland-ka. kadibna markaas ayaa khalkhalka iyo disorderku u dhacaya. haddaba waxaa jirta cunto iyo qudaar, aan idhaahdo qudaar jirka ku samaysa in balansiga jirku isu saxo, hormoonadu ay is saxaan oo qaab dabeeciya jirkaagu isku saxo. waxaa qaybta ugu sareysa kaga jirta tufaaxa. tufaaxu muxuu leeyahay? tufaaxu waxa ugu faraha badan ee jirkeena ugu taraa waa detoxifying, inuu sunta dilo. jirka cuntada soo gashay ee sunaysan iyo sunta jirkeena ku ururta iyo sunta jirkeena gasha ayuu la dagaalamaa. haddaba tufaaxu waxa uu ka hortag rasmi u yahay xanuunada loo yaqaano thyroidka ama hyper ha ahaado ama hyper ha ahaado ama ha ahaado mid sareeya ama ha ahaado mid hooseeya. haddaba haweenku ka hortagga ayaana ka wanaagsan daaweynta. prevention is a better than cure. marka waxaa isku daydaa insha Allah haweeneydu maadaama rag iyo dumar baynu riskigeenu ku badan yahay laakiin dumarku ay u sii badan yihiin isticmaalka tufaaxa inaad joogtaysato si xanuunkaad uga fogaato. intaasaynu kusoo ururaynaa. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.